bismillaah maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa xukunka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysane deble boliis 25226 cali maxamuud axmed 26 jir ah ina maryan xaashi ku dhashay Kismaayo ka tirsan saldhigga booliiska wadajir kaas oo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay dembiga ah dil bareer ah iyo dhaawac isagoo si bareer ah u dilay marxuum Cabdirasaaq Yuusuf Guure oo ahaa wade mooto bajaaj isla markaana dhaawac u geystay dhibane Cali Xaashi Mataan dembigaas oo ka dhacay degmada Hodan taariikhdu markay ahayd 8 bishii sanaad 2019 dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedaysane deble boliis Cali Maxamuud Axmed uu ka hor cadeeyay garsoorka hortiisa in marxuumka oo mooto bajaaj wado uu ka soo gudbay kontaroolka baarista sidaasna uu ku istaajiyay kadibna uu ku amray in uu dhiibo furaha mootada uu wadaha ka ahaa marxuumka markii uu diidayna uu isagoo ku cabsiinayay qoriga uu hal xabad madaxa kaga dhuftay isla xabadiina ay dhaawac u geysatay qof kale markay dhageysatay maxkamaddu maragii la hor keenay midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in ay arkayeen marxuumka oo ka gudbaya kontaroolka kadibna uu istaajiyay eedaysanaha muran kadibna ay xabad ka dhacday qoriga uu watay eedaysanaha madaxa kaga dhacday marxuumka isla markaana dhaawac u geysatay qof kale oo shacab ah markay dhageysatay maxkamaddu gabagabada gungaarka baarista booliiska oo uu baaraha galdacwadeedku ku cadeeyay in eedaysane Cali Maxamuud Axmed uu si bareer ah u dilay marxuum Cabdirasaaq Yuusuf Guure dhaawacna u geystay dhibane Cali Xaashi Mataan markay aragtay maxkamaddu cadeymaha dambi muujinta oo ay ka mid ahaayeen cadeymaha laga qoray maraga iyo dhibanaha dhaawaca ah qiraalka laga qoray eedaysanaha warqadda cadeynta dhimashada iyo sawirrada marxuumka mootadii uu wadaha ka ahaa marxuumka qoragii uu dilka ku geystay eedaysanaha oo noociisu ahaa AK 103 number eber 8 eber 96 markay dhageysatay doodii u dhaxaysay dhinacyada kala ah xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacaya eedaysanaha sidaa darteed maxkamadda waxaa u cadaatay in eedaysane deble boliis 25226 Cali Maxamuud Axmed uu yahay dembiile galay dembiyada lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Cabdirasaaq Yuusuf Guure cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabillahi tawfiiq